arinkaasi aadan ugu xumahay maslaxa Saalax Suleymaan xiriir badan baana dhaxmaray ma ahan in dadka ay no cunsuriyeeyaan ma ahan inay dadka na aflagaadeeyaan ma ahan dadka inay ka sheekeeyaan waxyaalo laga gudbay oo adduunka uu ka gudbay gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood markay wadamo kastagaan waxa aroos Jamaican Kenyaati Faransiis dad aan u qalmin anaga waxaan qof Soomaaliyeed maslaxa Saalax Suleymaan waan jeclahay jecel baa naga dhaxeeyo waan ilaaha naskaan qoray waan guursaday guurkana rasuulka ayaa baneeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu baneeyay quraankan waa lagu sheegay oo waxa la yiri halis guursado sidoo kale inta qabiilkana la tacaarufo waaye marka waxaan aad ugu xumaa in nala cunsuriyeeyo in jareer iyo jalaac meeha la keeno in waxaan loo fadhin laga sheekeeyo in wixii 91dii noolo noqo aadan ugu xumahay dadka Soomaaliyeedna arintaasi 100% way ku qaldayin qaar wanaagsanaa jiro taageerayaal ah aad u wanaagsan waxaan ku arkaa TikTok-ga waxaan ku arkaa Facebook-ga waxaan ku arkaa YouTube-ka social media dad anaga xumaanteena faafinayo ee dad wanaageena faafinayo dadku xumaanteena faafinayo aad u qaldan ayaa leeyahay ilaahay ka cabsada qabiil naga daaya Soomaaliyaanaay qarannimo naga badan aadan ugu xumaan waxa soo dhamaan Soomaaliya way ka jiraan in lis cunsuriyeeyo in heblaaymo u qalanto ilaahay wuxuu ku qadariyaa helay maslaxa maanta garabkayga waaye xaaskayga waaye dadka dhaaymo u qalanta aadan ugu xumaaday dhab ahaanteena waxaan leeyahay walaal ka fiirso hadalka aa leedahay waxaan waa adduunyo waa laga tagaa qabiilka aa sheegayso gudkaas hadaa gasho waxba kuma taraayo jareer iyo jalaac yaa abuuray alle jareer iyo jalaac yaa abuuray الله أبوري جريري جلعيا